waa mid ka mid ah hawl maalmeedka howlgallada joogtada ah oo ay qabtaan daraawiisha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug kaas oo lagu gol leeyahay la dagaalanka iyo sidoo kale ka hortagga maleeshiyada nabadiidka al-shabaab ee bilo ka hor ku soo duushay koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. warbaahinta ayaa maanta qayb ka noqotay howlgal isdaba joog ah oo daraawiisha dowlad goboleedka Soomaaliyeed Galmudug ay ka sameeyeen deegaanada koonfureed ee gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. saraakiisha ciidanka daraawiisha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee hogaaminaya howlgalkan ayaa ka waramaya howlgalka maanta deegaanada ay ka sameeyeen iyo ujeedooyinka laga lahaa. markasta iyo waqti kasta ciidanka waxay u taagan yihiin howlgalka amniga la dagaalanka argagixisada gobolka Mudug iyo gobolka Mudug oo dhanba Galmudug oo dhanba meel alla meesha looga baahday ay u gurmadaan maanta ma sha Allah ayagoo howlgal guud jira ayaa saxaafadda soo booqatay meesha ay joogaana waa meesha duurka ay cadow ay kula dagaalamaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa saraakiisha sharafta leh oo u dhawr adagtay la dagaalanka argagixisada gobolka Mudug iyo Galmudug oo dhanba khaasatan waxaan u mahad celinayaa saraakiisha daraawiishta Galmudug meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad amaalkiina Ilaahay baa gudi kara waa inay mahad celinayaa sida ugu dhawr adagtaan meesha ay joogtaan maanta ma sha Allah ciidan dawladeedna ma joogo ciidan kale oo nabad ilaalin ma joogaan ayaga meesha wax ka yihiin nabad ilaalin iyo argagixisada la dagaalamaan iyo qof kasta oo qalqaladay amniga inay la dagaalamaan howlgalkan maalinlaha howlgal joogsan maahan 24 saac waqti kasta waa la baxaa howlgalkan waa howlgal socda horena uu socday haddana uu sii soconaya maalinle iyo habeenle waqti kasta saacad kasta waa jira saacad laga baaqsado ma leh cadowguna waxa leenahay Allah naga celsho soo booqatay duurkan ugu soo booqatay waa soo dhaweynayaa waxa weeye ciidankani waa ciidan u taagan maalin iyo habeen inay howlgal argagixisada dirka habeen iyo maalin bay ka howlgalaan deegaanada saaka howlgal ka sameeyay waa yaa sheegay cimaamad iyo inta ka dhaxaysa hareeri dheere iyo qaacad wixii saaka jiraan ka sameeyay howlgalka saaka inta badan ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo shaqooyinkooda ay mahadiyeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Mudug kuwaas oo ku aadan dagaalka maleeshiyada al-shabaab lagu xoreeyay koonfurta gobolka Mudug iyo sidoo kale sugitaanka goobaha ay isugu yimaadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa qayb ka ah dadaalada isdaba joogga ah iyo ujeedooyinka loo aasaasay ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug. Baasha Cali Xaashi warbaahinta qaranka deegaanka Cimaamad.